Assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada dhammaan ku soo dhawaada YouTube-kiina Walaalaha Media waad ku mahadsantihiin dhammaantiina daawashada muuqaalkayga aad daawanaysid waa anigoo hana dirigaashaan oo idin leh isku soo noqod wanaagsan oo waliba xiiso leh haddaba aan guda galno mawduuceena caabo sida title-ka video ku soo aragtay wuxuu ku saabsan yahay qodobkeena maanta mise caabo waxay ku tahay sunniyaha iyo shakhsiyaadka uu ka turjumaya hayshi badana waxa ay cadayaan sunniyuhu qaabka uu qofka u fikira gabi ahaanba noocyada sunniyaha gabi ahaanba iyo shakhsiyaadaha ay ka turjumaan daawade sunniyaha toosani hayshi qofkani waa qof gabi ahaantiisa ku fikiro waxyaabaha aqli galka haddii aad rabto qofkani in aad wax ku qanciso inuu aamino tusaale ha ku oran qofkani waxaas ayuu ku xun yahay mise waxaas ayuu ku fiican yahay ayse sabab ahaan inaad u adeegsatid mooyee si kala maahan tusaale qofkaasi ku dheh waxaas iyo waxaad hadda samee lahayd minus ayay noqon lahayn waxaan iyo waxaas hadda samee lahayd tusaale plus ayay noqon lahayn waa fahmi kartaa filaa haddii aad rabto qofkani inuu waxa aamina aad ku qanciso daawade maadaama si logical ahaan u fikiraya qofkani sunniyaha gabi ahaanbu isku xiran labada dhinac marka loo eego waxaan ula jeedayay labada sunniya iisanka iyo wajiga hore ilaa dhankani kale timaha kale saad u jeedid daawade ugu qofkani inuu yahay qof aan fikiradiisa mise waxyaabaha maskaxdiisa ka dhac guuxayo mid aan kala joojin karin oo xad lahayn minis qofka noocan ah badana waxa uu qiimeeyaa ama uu ka fikiraa waxyaabaha jeerankiisa ah mise ku ag xareeraysan daawade hayshi qofkani waxa laga yaabaa inuu ka cawdo dhibaato hurdo la'aan awgeed iyadoo uu taa ay ugu wacan tahay mise ay sabab u tahay fikradooyinkiisa aan kala joogsi lahaynin iyo dhalooyinkaasa oo aan xad lahayn daawade hayshi sunniyaha angalka u samaysan qofkani waxa uu raadiyaa inuu xukun qabto dadkani badana waxa ay u dagaalamaan inay xukun qabtaan mise hogaamiye ay noqdaan daawade haddii aad rabto qofkani inaad wax la wadaagtid mise aad isla qabsataan ka dhig sidii qof muhiim inuu yahay daawade isku day gabi ahaanba magaciisa inaad ku dhigtid kulankiinii ugu horeeyana si aad marar kale ugu yeerto qofkani sidoo kale inaad qofkani gabi ahaanba dhiirigelisa waa mid aad iyo aad u fudud daawade isla markaani waxaad siisaa control badani hayshi dareensiina in wax walba inay isaga gabi ahaanba ku xidhan yihiin daawade sunniyaha dhudhuubani daawade hayshi markaa dhanka kale u soo baxna sunniyaha dhudhuubani waa qof gabi ahaanba dareenkiisa iyo qalbigiisa uu aad iyo aad u jilicsan yahay hayshi qofkani markaad la macaamilayso isku day inaadan ku odhan hadallo dhaawacaya dareenkiisa daawade qofkani gabi ahaanba dadka kale wuu ka jilicsan yahay daawade hayshi dhanka kale sunniyaha soo qoloocsan gabi ahaanba qofkani waa qof lala saaxiibi karo hayshi qofkani waa qof dhanka kale haddaanan ka fiirino qof aad iyo aad u dabeecad wanaagsan waxa uu badanani wax ku fahmaa tusaale iyo tilmaam waad ku mahadsantihiin dhammaan daawashada muuqaalkayga aad daawanaysid daawade muuqaalkii xigay intaan kuda kulmi doona haddaanu caafimaad qabno waa anigu hana dirigaashaan oo idin leh caafimaadkaaga ka faa'iidaysa kadibna khayr badan bye bye